madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta si ballaaran ugu qaabilay qasriga madaxtooyada wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cadde oo ay ka mid ahaayeen taliyayaasha sare ee ciidamada booliiska militariga safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Maxamed Xirsi Qalinle waxaana geesta Jabuuti kulankaasi ku wehelinayay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ku qaabilay qasriga madaxtooyada wasiirka arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada dalka jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Cabdi Xuseen Axmed wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti Xasan Cumar Maxamed sidoo kale waxa kulankaasi dhinaca Jabuuti uga qayb galay madaxa sare ee amniga qaranka dalka jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Xasan Sidiid Khayre wasiirka arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cadde ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti soo gaarsiiyay salaan uga siday madaxweynaha iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha kulanka uu kula yeeshay qasriga madaxtooyada madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa la isku soo qaaday xiriirka iskaashiga dhinaca amniga ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka jamhuuriyadda Jabuuti aad iyo aad baa u mahadsantihiin runtii Jabuuti si aan horeba u sheegnay waa dal aan isnahay weeye marka booqashada iyo isu imaanshaha iyo wada shaqaynta waa mid joogta naga dhaxaysa marka runtii waxaan gaarsiiyay salaan aan uga sidnay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo ayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle u gudbinay iyo hawlo kale oo runtii naga dhaxeeya marka runtii aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay muqaabalada wanaagsan iyo sidoo noo soo dhaweeyay madaxweynuhu waxaana runtii naga dhaxaysa wada shaqayn ballan aan ku qaadnay inaan si wanaagsan isaga caawino waxyaabo badan oo sida nabadgelyada iyo xuduudaha iyo waxyaabo badan oo kale horumarka marka intaasaan ayaan idin sheegi karaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda Jabuuti Cabdilqaadir Kaamil Maxamed oo wehelinayo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada dalka jamhuuriyadda Jabuuti Cabdi Xuseen Axmed ayaa wuxuu ku qaabilay xafiiskiisa ku yaala caasimadda dalka jamhuuriyadda Jabuuti wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cadde iyo wafdigii uu hogaaminayay